wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa sabtidii sheegtay in hadalkii madaxweynaha Mareykanka ee John Biden ku saabsanaa sheegashada Armenia ee la xiriirta dhacdooyinkii 1915 uusan lahayn wax aqoon ah ama sharci ah oo aan lagu taageerin caddaynta wakaaladda wararka ee Anadolu. Waxaan diidaynaa kuna cambaareynaa ereyada ugu adag ee hadalka madaxweynaha Mareykanka ee ku saabsanaa dhacdooyinkii 1915 ee lagu sameeyay dhacdadii kooxaha xagjirka ah ee Armenia iyo kooxaha ka soo horjeeda Turkiga. 24 Abriil ayay wasaaraddu ku tiri hadal ay soo saartay. Waxay tiri midkoodna shuruudaha looga baahan yahay adeegsiga ereyga xasuuq oo si adag loogu qeexay sharciga caalamiga lama buuxin karo dhacdooyinkii 1915. dabeecadda dhacdooyinka 1915 isma bedelayso iyadoo loo eegayo ujeedooyinka siyaasadeed ee hadda jira. siyaasiyiinta ama tixgeliyaasha siyaasadeed ee gudaha wasaaradda ayaa sheegtay in bayaanka Biden oo aan sharci ahaan iyo anshax ahaanba aan loo idman inuu xukumo dhacdooyinka taariikhiga ah ee uusan qiimo lahayn. wasaaradda shidaalka ee Suuriya ayaa sheegtay in dabdamiyaashu ay sabtidii dabka ka damiyeen markab booyad shidaal ah oo saarnaa warshadda sifaynta shidaalka kadib markii looga shakisan yahay inay soo weerartay diyaarad daroon ah oo ka timid dhanka biyaha Lubnaan. markabkan ayaa la garanayn cidda sida dhabta u leh iyadoo telefishinka Iran ee Al-Alam uu sheegay inuu ka mid ahaa 3 booyadood oo shidaal oo laga leeyahay dalka Iran oo dhawaan yimid xarunta saliidda ee Suuriya, halka wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee Tasniim ay beenisay inay leedahay Iran. markabkan waxa uu ka diiwaan gashan yahay Beirut, Lebanon. magaalada xeebta ku taalla ee Syria ee Benias waxa ku yaala warshad soo saarta shidaalka taas oo ay weheliso mid kale oo ku taalo Homs, midaas oo dabooleysa qayb muhiim ah oo ka mid ah baahida waddanka ee naaftada shidaalka iyo wax soo saarka petroolka kale. sida ay sheegayaan khubarada warshadda, waddanka dagaaladu aafeeyeen ayaa sanadkii la soo dhaafay wajahaysa petrool iyo shidaal yari, iyadoo saahida loogu talagalay meelaha ay dawladdu gacanta ku hayso sicirkuna kor u kacay. Syria waxa ay ku tiirsaneyd shixnadaha shidaalka Iran sanadihii la soo dhaafay, laakiin adkeynta cunaqabateynta reer galbeedka Iran iyo Syria waliba lacagaha qalaad ee ay saareen ayaa ka dhigtay mid aad u adag in la helo sahay ku filan. wakaaladda wararka dowladda Suuriya ee Sana oo xiganaysa wararka ka soo baxaya wasaaradda shidaalka ayaa faahfaahin dheeri ah ka bixin. waxay ku sheegtay in ay tahay diyaarad drone ah. TV-ga Iran ee af Carabiga ku hadla ee Al-Alam ayaa sheegay inuu jiro xoogaa waxyeelo soo gaaray markabka booyadda ee laga leeyahay Iran, laakiin aanu jirin wax khasaare ah oo soo gaaray. Israa'iil ayaa ka gaabsatay inay ka hadasho dhacdadan. dhanka kale, Israa'iil ayaa balaarisay weerarada ay la beegsanayso bartilmaameedyada Iran oo ay ku jiraan xarumaha looga shakisan yahay inay soo saaraan hubka. Iran si ay isaga celiso waxa ay u aragto xadgudubka militari oo ay ku samayso cadowgeeda soo jireenka ee gobolka, ilaha sirdoonka ee reer galbeedka iyo gobolkaba.